xildhibaanno ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan warbaahintu dibadda ka joogtay kula qaatay xarunta maamulka ee gobolka guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer. safarka xildhibaanada oo ujeedadiisu ahayd xogogaal u noqoshada xaaladda nololeed iyo midda nabadgelyo ee gobolka ayaa markii uu soo dhamaaday kulanku waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd, maayirka Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo xildhibaan Cumar Nuur waaye oo hogaaminaya xildhibaanada golaha guurtida ee safarka shaqo ku jooga gobolka Togdheer. waxaan noogu yimi xildhibaanadii qaranka khaasatan golaha guurtida iyagoo u socday shaqooyinkoodii ay u xil saarayeen waqti marka la joogaba aan uga baranay inay noo yimaadaan si ay xog uga helaan ay ku darsadaan shaqadooda ay dhinacyo badan wax uga ogaadaan si loogu daro shaqooyinka ay qaranka u hayaan wixii u baahan in golaha la waa soo dhaweynay si wanaagsanna waa soo wareysanay wixii xog aan gobolka ka haynay degmadaba waa u dhiibnay xildhibaanada shirkaanu ku galay wuxuu aadanaa inay xoogaa u noqdaan xildhibaanadu gobolka Togdheer xawaasha ka jirta hadday dhinac nabadgelyo noqoto hadday dhinac arrimo bulsho noqoto hadday dhinac waxbarasho noqoto hadday dhinac deegaan noqoto u yimaadeen gobolka aad iyo aadna waanu soo xog wareysanay waanaanu si fiican baanu isula afgaranay si fiican baanu isaga wareysanay si fiican bay noogu dhamaatay daanu nahay waftigii golaha guurtida ka socday ee kormeerka ku joogay gobolka Togdheer waxaanu saaka la kulanay guddidii nabadgelyada warbixintii aanu u soconay ee aanu gobolka doonaynay inaanu ogaano war buuxa oo waafiya gobolka iyo xaaladiisa ayayna siiyeen warka ayna siiyeen oo war badan oo farxad li ku jiraan waanu kala qaadanay wixii aanu u soconayna waxay ahayd xogogaal u noqosho gobolka wixii geesta kale xildhibaanada golaha guurtida ayaa waxa ay kormeer indhayn ah ku tageen cisbitaalka guud ee magaalada Burco iyaga oo u kuurgalay habka iyo hanaanka shaqo ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxaana warbixin ka siiyay xildhibaanada golaha guurtida agaasimaha cisbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim adeega bulsho ee dhanka caafimaadka ee 24 saac ka socda cisbitaalka guud runtii dhiskan imkan hor taaganahay waa dhismayaasha sanadkan qorshaha nagu jireen cisbitaalka u dhisno waa qayb aan ugu tala garnay shaybaar casri ah oo cisbitaalka maadaama shaybaarkii hore nagu yaraaday oo dadkii cisbitaalku adeegaya ay kordheen shaybaarkan aan dhisayno maaha mid haydin inaga caawinayso cid kale naga caawinaysa cisbitaalka dhisanaya waxaan iskugu jiraa qaybtii blood bank ee dhiigga lagu kaydinayay iyo shaybaarkii guud aan insha Allah doonayna isagana inaan ku soo kordhino qaybtan culture-ka loo yaqaano dhismayaal badan baa ku soo kordhay oo dhismahan imika oo kale uu kamid yahay waxaan isagana qaybtan umulaha waxaan kor u qaadnay nadaafadda cisbitaalka waxa dhammaan adeegyadaas oo dhan ay kordhiyeen dadkii cisbitaalkan soo adeeg doonayay oo boqolkiiba iyaguna ilaa 400 kordhay dadkii cisbitaalkan bariga hore imanayay dhankiisa xildhibaan Cumar Nuur waaye oo afka xildhibaanada ku hadlayay ayaa ka dareen celiyay hawlaha shaqo adeega caafimaad ee ka socda cisbitaalka guud ee magaalada Burco wuxuu noo muujiyay wax qabad badan oo fiican oo ku soo kordhay cisbitaalka oo de hawshiisa oo karaankiisa ummadda meesha joogtaaba ay iska wada kaashatay baahiduna kolle way iska badanaysaa oo de waa cisbitaal 5,000 sida maqlayseen 5,000 oo qof ayuu adeegaa buu yiri ugu yaraan waliba gobolada labada gobol ee galbariga xiga iyo ilaa hawd ilaa kilinka shanaad waa fahmi kay saxarsi bulsha TV Burco.